Soomaalida waxaa la hortasiibo meeshan asxaabta is ognahay si fiican oo fahamsantihiin sawirnadkaas iska ilaaliya markasta isku day in idinka boqol shii macalinka ish farta ka gelisiin midka hoos u jiraade way fiirisi waxa dhaa traffic ma taayiraahday maxaa dhar noocan u soo gashtay ilaa hadii wax kor ku soo gashanaysa taa wax normal soo gashatay asxaabta waa idin masalan kanaalkay ku soo dhawaada maanta ardayda dugsiga sare su'aalaha la soo warsada buugga waa u jeedin buugga su'aalaha su'aalo dhowr way jiraan marka su'aalahaas kuwii faahfaahin laga bixin kar faahfaahinta idin kaga bixinaa kuwii laga bixin karin caadi waa idin soo koowaa ardayda dugsiga sare maanta kaliya su'aashan isoo warsada waxa idin kaga soo qaadaya qof maanta walaashiin gabar abaayadin idin kabeen mise gabar walaashiin qof asxaabtiin camal in asaas idin kula hadlo isku daya insha Allah isku daya ma hasaaban haribo asxaabta su'aalihiina idin kaga jawaaba maanta su'aalaha la isoo warsada ardayda hadda dugsiga sare maxaa ugu talin lahayd talada maxay ahayd ardayda dugsiga sare maanta oo hadda form 4 ka kuwa form 1 ka form 2 ka soo hadalay horta ardayda dugsiga sare ah koo markay galayaan hawl gooni waaye hadhow kale hawl gooni waaye fasalka koowaad fasalka labaad fasalka saddexaad afraad qof fasalka koowaad iyo qof fasalka afraad isku mid ma laakiin sanadahaas waxyaalahaas kulligoodi tijaabooyin waaye arag waxyaalo adag ku zaaideenayso jiro marka hadda ardayda dugsiga sare waxyaalaha la isoo warsa su'aalaha qof had dugsi sare maxaa ku waanin lahayd qof had gal rabo ani dugsiga sare marka bilaaway waxyaalihi ani oo jeclaan lahaa in ii sheego oo ogeenin casharada kale dugsiga sare gooni waaye laakiin waxyaalaha kale oo nolosha iskoolka macallimiinta waxyaalaha ku saabsan in idinka fikrado iyo xoogaa waaye aragnimo waxa soo arkay in idinka jawaab idin sheega isku daya insha Allah haddana waxa idin saamaanta waxa idin sarwaa mujadin biladan waqtiga lisii maxali isiya idin sheega bundooyinkay kuwaana dugsiga sare bundooyinkiis waaye laakiin ma jeclaan lahaydeen idinka video aan hal xab in idin tuso muumaleynay laakiin video kale hadaa rabtiin video soo dheeraanin kaliya waanooyinka idin sheega marka hadda waanooyinka idin sheegayo waxay tahay number 1 ardayda tahay subaxii iskoolka aadaysa galabtii waa soo noqonaysaa maxaa soo markaa haweenkii inaad wax akhrisid kan in la isku sheegayo muumaleynay markaan dugsi hoose mise dugsi dhexe matid qof weyn tahay qof oo bari ka maalin noloshiisa kale jaamacadiis waxyaalihiis kale oo samaysan lahaa oo adin laga rabo tahay wax akhriskiina in macallin idin sheegin qof kale asxaabtihiin mis waalidkiin maanta inuu wax akhri idin dhihin arday qof jecel male wax akhris qof jecel male imtixaan exam inuu galo beeyaa la isku sheegin waa la soo geeyay laakiin wax xun ha u arkina wax akhriska markay idin dhahaayo baanta casharka edabiyaada jiro diilba anlaad macasharaas la qaadanayo inkilaaba jiro waxyaalaha qaarkiis casharada qaarkiis ma bala fahmaayba waa idin la ogahay waxaas kulli waa la soo maray wadooyinkaas kulli waa isla soo marnay xataa waxaa markasta la yaab jira casharka oo zaaid u nacbanaa ma laakiin oo fahmaynin inkilaabka waaye inkilaabka ma fahmaa bilaayaa bilo ogba wadan taariikhis wadankan taariikhis wadan kale meelaas min kale bundooyinka intayga soo fiiriyooyin hada wixii dugsiga sare soo qaadanaya okay ugu yaraan maalinkii 2 saacadood ugu yaraan waay 2 saacadood inaad fariisato wax akhrisato isku day mar walba in telefoonka iska ilaalisin telefoonka idin sheego maxaa waay ka hadda iga fiirsanaysiin waay laga yaabaa in idinka telefishin iga fiirsanaysiin telefishinada wax ma jeclaan oo oo casriga mis computer iga fiirsanaysiin laakiin والله بم إذن شيء تلفون كان سوشيال ميديا هن وحيالها زائد كلو استعمالها وقتها سوكا لما مؤانيسد وقتها مهم وين سازدرتي تلفون كمبيوتر وحيالها كلا استعماليسد إن هلاها أوير إنا استعماشت إنا اسكو دايدت وهي زائد وقتين عرير وياهي أنا مدريمينو لكن ما ننتي إن لواتي أفر ساعة وهي أنا وحا أسألوه ساعة لواتي أفر ساعة وفلنتها وبلنتها حتى لكن هوينك ما يخصعها هردوسا أنا اسكول كينا دوكسي سروحوها maalinkii 20 daqiiqo aan messenger telefoon badan waalidkeena 24 saac la hadleena saaxiibkeena la hadleena saaxiibteena la hadleena qofkana inta ka baxday qofkan muxuu soo dhigay qofkan muxuu facebookkiisa instagramkiisa youtubekiisa ma jirin marka anaga dugsiga sare ahayn aad ugu faraxsanahay in saas la iisoo sameeyay waagaas laakiin waas inuu mafku faraxsaneen hadda ku faraxsanahay wax akhriska 24 saac aan fariis wax akhri midan dhahoy qof dugsiga sare ah fasal kood maxaa akhrinay laakiin kaliya isku day bundooyinka لحن إنه كهوسينين
buundooyinkaas adi ugu yaraan tashakur wax la dhahay ardayda dugsiga sare way fahansan yihiin si fiican isku ognahay wax tashakur lahay inay qaadatin ugu yaraan isku daya tashakur haddii qaadanaysiin oo orod ku qaadan kartiin taqdiir inaa qaadatin isku daya taqdiirkeed kan dhahaana 85 ardayda buundood markay ka sareyso waay tashakurka maxaa waaye tashakurka waa idin tusaa wallahi waa adkaysan la'sanayso tashakurka qofka markuu 65 buundadiisa ka koreyso 75 ma ahayd 85 markuu ka koreeyno qofka taqdiiru qaadanay muujeedin wallahi buundooyinka kulligood waa kana haddii rabtiin video haddaa rabtiin waa idinka soo duuba buundooyinka dugsiga sare hal inaa u aragtiin asagoo wax lakala qarsanaynin sabti axad mise hafta soonis ay dhahaan turkida sabti axadaas iskuul ma jiro wax akhris ma jiro waana sanaa oo waa seexanaa hadhihin sabti axad adi isku day in 24 saac maaha 24 saac meeqay noqonay 48 saacadood 24 saacadood hal maalin gudaheeda 4 saacadood inaad akhrisid isku day ugu yaraan sabti axad waxyaalahaas akhrisata waxay kuu tareen tan kale waxaa idinkugu talin lahaa barnaamijyada inaad ka qayb gashin dugsigiina sare محقق boqol wuu leeyahay barnaamij waxa la sameeyaa maalinta ilmaha adduunka maalintii oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam dhashtay maalintii uu dhintay maalin kasta mawluud waxyaalo badan la sameeyaa jiraan hadda maskaxday kusoo dhacoonin maalmahaas barnaamijkaas inaad ka qayb gashin isku daya ani luqada ma ka saay ani ajnabi ahay ani waa la soo fiirina bulshadaas oo ka cabsanaysiin wallahi aamina qofka turkiga xataa uu ka cabsanaa qofka kale ajnabi kale wadan kale u dhashay uu ka cabsadaa qofka Soomaali uu ka cabsadaa qof kasta waa laga wada sameeyahay laakiin in karti isku yeeshid isku day adi way fahanteena umalena ani barnaamijyada ugu yaraan waaye ugu yaraan barnaamijyada ka qayb galay 30-40 way ka badan yihiin dadka hor istaagine 10,000 maanta qof meel isku imaado hor istaagi kare heersaas aha soo gaaray maanta 3,000 2,000 dad meel barnaamij anoo istaaga xasuustaa meeqa ka bilaabay fasalkeen dadkiis bisay tartiib barnaamijka ani macalinka adam xishoonasaha yaa macal mise muduur ani waa xishoonayaa xoogaha dadka bulshada waa ka cabsaa maxaa sameyn karaa laakiin inay ka qayb galo waa rabaa ani inay nafsadey horumarsasisto waa rabaa maxaa sameyn karaa maxaa igu talin lahayd dadkaas haddii la sheekaysatid haddii warsatid wallahi waa idinku waa in laydin caawin doono tan kale ardayda dugsiga sare waa is ognahay waan iska warqabnaa soo zulunad waxa la hayaa jiro soo zulunadka waxa laga wadaa arday maanta fasalka markaa fadhiisid macalinka dhaqankaagii habkaagii waxbarashadaadii wax akhriska imtixaanka dadka kale dhaqankiisa macalinka qaabka u hadlaysa adabta tarbiyada waxaas kulligiis u qiimeynaa macalin kastana wuxuu leeyahay soo zulunad oo dad siinaa buundada buug maanta warqadan imtixaanka waa gale waa ka shaqeysay kan haddii 100 qaadid soo zulunadka mise imtixaanka fasalka dhexdiis markaa fadhiis macalinka la hadalkiisa tarbiyada akhlaaqda haday xumed macalinkaas maanta 60 wuu ku siin karaa buundada way ka soo dhacay maanta hadii adi 40 keensatid mise 50 70 keensatid laakiin macalinka wuu ku yeelaa qof arday gabar fiican ah tahay mise wiil fiican ah tahay 24 saac wixii soo akhristaa waxbarashada wuu jecel yahay barnaamijyada waxyaalaha kale uu ka qayb galaa macallimiinta kale wuu sharfaa wuu xishmeeyaa wuu qadariyaa muxuu isdhahaa qofkan wax buu akhriyay wuu dadaalay ani waa ogahay ilaahayna wuu ogahay laakiin adi ugu dar buundadiis soo zulmadka macalinka wuxuu ku siinayaa waay qof oo la fargashanaysa male buundadaas adaa iska leh macalinka ku siiyay adaa xaq u leh buundadaas soo zulmadka markasta waxaa idinkugu talin lahaa idinkugu waanin lahaa ardayda dugsiga sare in oo ka digtoonaadaan siiba ardayda inta joogto anaga Soomaali soo zulmadka mas buundadaas kale oo caadi macalinka dad siinaya ma lahayn laakiin ummadda hadda inta joogto asxaabtu is ognahay si fiican oo fahamsantihiin soo zulmadkaas iska ilaaliya markasta isku day in idinka boqol shii macalinka ishfarta ka gelisid imtixaan markaa galaysid imtixaanka ka hor laga yaabo maanta fasalka koowaad aad tahay qof kasta stress waxyaalo badan ay jiraan marka adi luqada la soo baratay dadkan maxay sheegayeen imtixaan maxaa laga wadaa waxyaalahan kale sinaaw imtixaan way naftirkiisa ma ogidid maaho isku day maanta ani sinaab maxaa laga wadaa imtixaankaas waxaa rabaa in 70 qaato inaad 80 qaato in 90% qaato marka imtixaankaas galaysid buundada u fiican meesha u fiican inaad keensatid isku day haddii maanta 90 qaadanin ogow 60 waa qaadan 70 waa qaadan mukugu dareyso waa sameyn kartaa waana sameyn kartaa taas waa in aaminsanahay ani Soomaalida waxaa la hortasiibo meeshan
dad oo jalashkaamin waay. Jalashkaamin maxaa laga wadaa? qof maanta dhan wax baranayo, waxbarashada jecel oo clever, dad oo markuu wadankan imaado ajaanibta dad kale ma la mid aha. luqada markay ku dhawaaqayaan, ku hadlayaan, hadalkooda xataa ajaanibta kale waa laga kasaa. luqad si oo fasiix oo tartiib ay u hadlaan, oo fiican u hadlaan. ani waa idin aaminsanahay oo maasha Allah ha tihiin. insha Allah waxyaalaha idin sheego waa sameynaysiin, haddii sameeyna xataa waa isku dayaysiin. laakiin hadda ani tajrubaday, waxyaalihii ani sameeyey, waxyaalihii ani kale oo soo mare oo soo arkay aa idin sheegooya. wadadii ku dhacay ku dhicina, wadadii aniga kasoo baxay idinkana kasoo baxa, sida fiicanna uu soo baxa, si wanaagsan kaga soo baxa. uniformka, make upka, nadaafada dugsiga sare muhiim waay. jaamacad waxaa rabtid gashanee, hadaa rabtid finaanadii kusoo xada xali waa ku aadi kartaa. hadaa rabtid wax dharkaa rabtid gashan kartaa. jaamacad qof maxaa ka ugashatay, maxaa dharkan saan u yeeshay qofku dhehaysa male. laakiin ay dugsi sare markaa tahay dharkaadii uniformka ilaali. iskuulaad qaarkood oo waxaa jiro oo dhar cagaar gashanayaan, kuwa garhiijo gashanayaan, kuwa balug gashanayaan, kuwa balug maariya gashanayaan. iskuulkaas ada dhiganayso dugsigaas sare dharkii lagu talgale, waxyaalihii lagu talgale. dadka qaarkood ardayda waxaa jiraan adi argaanin doonamiyay dhahaan, mise qofka markuu soo qaangaarayo waqtiyada oo qaangaarka sanadahaas marka ku jirtid argaaninimadaas mise qaangaarnimadaas ay ku qaadin. okay, qof kasta wuxuu jecel yahay markaas dugsi sare markii leeyahay dhar nooc kale inaa gashid, waxyaalo kale nooc kale inaa xiritid. goon haddii iskoolka loogu talgala, mise surwaal oo gariije mise cagaar haddii loogu talgala, adi wax oranjaa rabtaa inaa gashid. ay maalinaa igu soo dhacday idin sheego, uniformkana kusoo xasuustay. maalin anoo dugsiya sare ahaa waxaa gashta, maxay idin la tahay? dharkan oo siwiidka la siwiid shirtaash waa jeclahay. siwiid shirtaanka finaanaashan oo madaxa leh oo waaweenka oo caadiga ah oo dhaadheerka ah, kuwaas mid kamid ahaa gashta. laakiin nooceed makasii siwiid oranjaha oo fosfoorka dhahaan, oranjaha oo traafikada ma arkin oo markii dhib wax dhaco dhulka geedka la dhigay noocaas oo ahaa. naagta mudiirada taabuurkaan istaagsan yahay, naagtaan way iscelis ugu dambeyn qof kasta markuu gudbaa fasalka la galaa anaa la soo gaaray. waxay dhahday dhegtayga soo qabatay. naagtaan waxay dhahday uniformkay waa feeday, hoos uu igu jiraa dhehe. uniformkay hoos uu igu jiraa dhehe. way fiirisay, waxay dhahday traafika maa tahay dhahday. maxaa dhar noocaan usoo gashatay dhahday. haddii wax kor kusoo gashanaysa xataa wax roolmaa la soo gashatay. waa fikir haan sax waa isdheh. laakiin waa soo gashtay dhalinyaronimo, ma fahanteen? waxyaalahan kale idinka waxyaalaha la jecelahay waxyaa sameyn waa sameynaya waqtigaas dugsiga sare. soomaalida badan waa daboolana, waa xijaabanahay. laakiin turkida kale misad oo waxaa jiraan oo madaxooda feedeen, kuwaasna dhaga ma loo ogolo inay gashtaan, katiina ma loo ogolo inay xirtaan. waxyaalaha qaarkood makeup inay sameeyaan ma loo ogolo, inay oo rinji cijiya wax marsadaan ma loo ogolo. waxyaalo badanaa jiraan. waxyaalaha nadaafada inaad ka digtoonaatid. madaxa wiilasha camal haddii wiil qof ifiirsanayo hadday jiraan, wiilasha camal timahooda inay dheereenin, timahooda inay soo jaraan. maxaa laleeyahay siigar hadday qabaan mise shaarba qabaan mise markaas usoo baxooyo, kuwaas inay iska xiraan, nadaafsadaan, nadaafadood waxood inay toosnaataa la rabaa. dugsiga sare dadka markay banaanka laga fiirinayo, dadka waxay rabaan mise maamulayaasha macalimiinta, dadkaas ardaydaas kulligooda isku wada siman, qof wax ka koreynin mise ka hooseynin inay noqdaan. marka shuruudaha sharciga meesha u yaalo in oo idinka oo jijibinin isku daya waa idin kugu talinaa. taasna waana talinimo. ani camalna taraafika gashanina ta anaa soo sameeyey. kadib dharka taraafikada dhan waa biska dhaafay banaagtaas maalin kadib ilaa had waa qoslaa mararka qaar. insha Allah marka adinkana saa jeceshihiin waxay nidiin jeceshihiin naqanay kaliya noloshaas markaas ku jirtiin. college ma ku jirtaa, collegekaas qiimihiisa, waxyaalaha sameyn kartid meesha uu sareyso inaad sameysid isku day. gurigiin ma joogtiin, guriga adoo joogtid waxyaalo fiican inaad sameysid isku day. iskuulka ma joogtaa, iskuulka markaa joogtid macalimiintaadii, dadka la dhaqankaagii, asxaabtaadii. turkida qofkan turki waa, qofkan ajnabi waa, mise qofkan saan waa, mise qofkan soomaali waa, ma isjecelin. saasaa isdhihin. muxaqaq ogaaw noloshaan qof xun inuu jiro, qof fiican inuu jiro. ilaa ilaahay uu kuu aadinaa qof fiican inaad heshiin oo noloshiin isla wadatiin.
qof kasto aniga markasta waxaa la jira mudiiradeen qof kasta inaad jeclaatid ma ku qasbanidid 24 saac qof boqolkiiba boqol ardayda kulli waa jeclahay macallimiinta kulli waa jeclahay I love you inaad dhahdin kuma qasbanid saaseen jirtay mudiiradeen maanta qof aad jecleen qof isku qalatihiin way ayaama waas in waa soo aragnaa anaga dagaal hadii wax aragtid mis qof wax xamana aragtid ha dhaxgalin ka fogow tan idinku talinaha tan way iska ilaali dagaalada waxyaalaha kale problemka dhaxgalin dad qaarkood waxa jiraan siibad groupka waa u yahay dugsiga markii leeyahay groupkan hebel gabartan mise wiilkana balaayo horu socda ardayda kale kuwa kale maxaa la asi doorada ilmaheed jiji doorada ilmaheed amal gaalka hal qofna horsaan u socdaa qofkaasna ha naqanin dadka gadaal soo socdaan ha naqanin wiliga ayaa lagu xukumin adina wax xukumin adina qof nafsadiisa siis kale ay wax sameeysan karo okay group waxa ka qayb gali kartaa mise asxaab dad waa lahaan kartiin groupka asxaabta ma sha Allah way naqan karaan mise way xumaan karaan ay fikrad lahaa hadii fikrad lahayn hadii ay fikrada xumaad mise fiicnaato qof fikir kan qof maskaxiis ka shaqeysan kara hadii ahayna way ku dhamaatay asxaab fiican inay yeeshateen asxaabta fiican dadka wanaagsan maanta qof saaxiib la noqday mise waa isbartay marhaba nasan falan waa isbartay caadi marka isbartiin kadib qofkan qof fiican ma qof xun ma ayaamaha koowaad fiiri dugsiga saldad waxa sameeyaan way jiraan banaanka markay aadaan maadooyin kale waxyaalo kale xun ma soo cabaan khamri waxyaalaha kale isticmaalaan mise qofkan maxaa la shiishada waxyaalaha kale mu isticmaalaa laga yaabaa inuu waalidkiis ka cabsanaa laakiin aan waalidka ka qarnaa adinku waa ka soo qori soo baxay soo raac way sameeyaan ma dhici kartaa saas dartiisa ani gabara ahay gabartaas awligay ma arkin waxa isdhihin way jiraan gabdho waxa sameeyaan asxaabtaas dadkaas inaad iska ilaalisid isku day iyaga inaad la dagaalantid ma nafsada la dagaalan ana qofkan daraad waa isbaranay hal bil hal sana saaxiib nahnay laakiin waliga qofkan qof ahayn saaxiib ma noqon karay hadhihin waa la noqon kartaa saaxiib ma salaam hadii in xataa ma tartiib uu gabso billahi tawfiiq wadada kale isticmaal kan si fiican u isticmaal dugsiga sare markii ahaa waxyaalaha ugu farxad badanaa geedkana la isiiyay waa u jeedin waa bakasiisina u maleynaa ardayda misada korna ma aragteen laga yaabaa sanadkii la isiiyay waxay ahayd 2013 Oritim Yellow sanadkaas waaye oo waxbarashada sanad dugsiyeedka 2013 Ornek orange waxa laga wadaa ardaydu saal loo soo qaato waa idin sheegaya waxyaalaha idin sheegay kulligood waxyaalaha maskaxdayda ka kansada ma waxa idin dhooya ani wax meel ka soo akhriye mis waxyaalaha dadkan oo cilmiyahanadiinta mis kan saan sameey kan hadii sameeysid adduunyada saan ma naqanaysa saan waa naqanay idin dhooy kaliya kulli waxa idin sheegayo kanaalkan hada kadibna idin kala soo gudbin doono idin kala soo gudbinayo nafsad ahaantay way ani wadadii ku dhacay adiga ku dhicin wadada hada aad ku jirtidna sidii ugu fiican oo bixi lahayd oo maanta heer uu gaari lahayd isku day heerka maanta aad gaartid aniga farxadan oo tahay videoyaashan waa baafin kartiin baafiyo idin dhahooyo mukraafa ina qaatina baafinina videoyaashan waa baafin kartiin asxaabtiina dadkina kala dugsiga sar dhiganayaan arday ama qof arday ahayn xataa waa u diri kartiin xaafadihiina waalidiintiina dadkiina kulligood waa u diri kartiin qofka rabtiin وما سنتين أدي وما سنتين كنالك إن سبسكرايب إساعدين هاي لوينا ساس على ولا بافيو سبسكرايب على ولا لايك إنا إساعدين كومنتنا إيسو قركرتين تيك توك كومنت وإيسو قركرتين مش اسمه مركز فيديو وحاسوا ليها مش سنو إجلس عن كرتين أدي وما سنتين دوكسيس الأرضية دوكسيس المركيلين والله ميل أو درين كرين كي كنا maadaama aan arday dugsi sare inta soo dhigtay rafaadka inta waxyaalaha inta soo maray oo ahaa problemada kale waxyaalaha kale aan la kulmay saa iskaga celiyay maxaa laha asiisa uu soo baxay dugsiga sare maxaa sameyn jiray mar waxaa jirta ani oo gabay qori jiray jirto gabayada waxyaalaha qaarkood ani meel soo istaajir waa ka hadli jiray kulligood waa in soo duwada rabtin comment soo qora bye bye